gabar caanoley ah waxay ku nooleed tuulo aad u yar. Aroor kasta waxa ay maali jirtay sac, suuqa ayayna u qaadi jirtay caanaha si ay u iibiso. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii waxa ay u socotay suuqa iyada oo xambaarsan baaldi ay caano ka buuxaan. Maanta saca caano badan ayuu i siiyey. Haddii caano badan uu i siiyo, waxaan helayaa lacag badan. Gabadhii ayaa sidaa hooska iska dhahday iyada oo faraxsan. Lacagtaas waxaan ku gadan doonaa digaagad, waxayna dhalaysaa ukumo. Markay ukumaha fiiqmaan, waxa ay noqonayaan digaag aad u badan. Gabadhii weli fikirkii ayay sii waday. Markaas ayaan ukumaha suuqa geynayaa. Waxaan ku iibin doonaa lacag fiican. Lacagtaas ayaana digaag badan ku iibsan doonaa. Digaag badan waxay i siin doonaan ukumo badan. Ukumo badanna waxaan ka heli doonaa lacag badan. Markaas ayaan taajir noqonayaa. Sidaas ayadoo niyadda iska leh ayaa baaldigii caanaha ay ku jireen ka sibxaday. Caanihii ay suuqa u wadayna way ka daateen. Dulucda sheekada waxa ay tahay marna ha xisaabsan wax aan farqahaaga ku jirin.